United ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa guud ahaanba sheegtay inaysan suurtagal noqon doonin labada ciyaaryahan ee Chris Smalling iyo Alexis Sanchez oo waqtigan amaahda kaga maqnaa kooxda Manchester United in aanan loo kordhin doonin xil ciyaareedka soo socda amaahda kooxaha ay la joogaan waqtigan xaadirka sida Roma iyo Inter Milano. Maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaya labadan ciyaartoyba in heshiis joogto ah lala saxiixan doono maadaama Manchester United aysan diiwaan gelinin wada hadalada heshiis kordhin kale ku aadan xidigahaasi Smalling iyo Alexis Sanchez. Man qorsheeda kaliya waxay tahay xil ciyaareedkani guud ahaan bay iska iibiyaan labadaas ciyaartoyga ka hor inta aysan ku soo laabanin stadiyaha Old Trafford 2 Agosto. Kooxaha ay ka tirsan yihiin labada ciyaaryahan ee Chris Smalling iyo Alexis Sanchez ee Roma iyo Inter Milano ayaa labadaba waxa ay doonayaan in kooxda Manchester United ay weydiistaan xil ciyaareedka soo socda in xidigahaasi ay baaqi ku sii noqdaan sirada wadankaasi Talyaaniga. Walow madaxa Sportiga kooxda kubadda cagta Roma uu qiray in ay diyaar la yihiin in Chris Smalling heshiis joogto ah ay kaga saxiixan doonaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United si ciyaaryahanka uusan uga ambabixin Stadio Olimpiga ee caasimadda wadankaasi Roma. rajo walba sidoo kale wiilka reer Chile Alexis Sanchez ayaa asna markaa doonaya guud ahaanba inuu ka dhaqaaqo sirada wadankaasi Talyaaniga halka tobraha kooxda Inter Milano uu rajo weyn u ka leeyahay ciyaaryahankaasi Alexis Sanchez uu ku sii nagaadi doono kooxda Inter Milano. balse Manchester United waxa ay ku dhawaaqday guud ahaanba inay diyaar la yihiin ciyaartoydaasi inay markaa iib ka yihiin xil ciyaareedkan kooxda Manchester United balse aysan suurtagal noqon doonin in mar kale Manchester United ay amaah ku dhibto xidigaha Chris Smalling iyo Alexis Sanchez. difaaca kooxda kubadda cagta Napoli ee Koulibaly ayaa markaa qiraya in waqtiga kan xaadirka uu ku faraxsan yahay mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta Napoli maadaama ciidankan uu dhashay wadankaasi Senegal. Koulibaly aad loola xiriirinayo kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Manchester City iyo Liverpool. Koulibaly oo waraysi siinay radio Kiskis ayaana markaa sheegay in waqtiga kan xaadirka uu ku faraxsan yahay waayiisa ciyaareed ee kooxda kubadda cagta Napoli waxaana Koulibaly uu xusay inuu san damaanad qaadi karin in uu sii joogi doono mustaqbalka kooxda kubadda cagta Napoli ayadoo ciidankan lagu riixay arrimaha ku aadan in xiriiro kala duwan marka uu la leeyahay labada kooxood aad ka xifaaltamaya horyaalka wadankaasi Ingiriiska Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. balse wiilka reer Afrika ayaana markaa sheegay in mar uu ay dhici karto ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Napoli balse waxaan qirayaa waqtiga kan xaadirka inaan ku qanacsanahay kooxdeeda ayaa laga soo xigtay wiilka reer Afrika ee Koulibaly. xidigani Koulibaly ayaa kamid ah difaacyada ugu hadal haynta badan ee suuqa kala iibsiga xagaagan waxaana xil ciyaareedkiina ku soo gudubnay ku gool dareystay 7 kooxood laakiin waxa xagaagan la qorsheenaya in ay dhici karto ciidankaasi inuu u boqolo mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska. Koulibaly ayaana markaa xusaya in rajadiisu ay tahay in uu xil ciyaareedka soo socda uu ku sii nagaadi doono kooxda kubadda cagta Napoli ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga. maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xilligan cabsi xoogan ay soo wajahday ee ku aadan da'yarkooda Ansu Fati maadaama laacibkani dalabyo muhiim ah ka soo gaaraya markii loo eego kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska. xidigani Ansu Fati ayaa bishii December sanadkii tagay 2019 heshiis u saxiixay kooxda kubadda cagta Barcelona gaaraya tan iyo sanadka 2022 balse Barcelona ayaa qorsheynaysa in heshiis kordhin kale u sii sameeyaan si ciidankaasi u noqdo mid guud ahaanba ku sii nigaado waqti dheer kooxda kubadda cagta Barca garoonkeeda Camp Nou Stadium. Manchester United ayaa ciyaaryahankani baahi xoogan u qabtay balse waxa arrinkaasi ka hor istaagay madaxda sare kooxda kubadda cagta Barcelona oo xusayay in waqtiga kan xaadirka da'yarkaasi uusan iibkeen kooxda kubadda cagta Barcelona ma aysan cadeeynin qorshaheedii ugu dambeeyay ee xidiga Ansu Fati maadaama laacibka Stadio Camp Nou uu ku haysto heshiis gaariga tan iyo sanadka 2022. tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee macallin Ole Solskjaer ayaa markaa sheegaya in muhiimadiisu ay tahay isku day xoogan in kooxdu markaa ay sameeyso maadaama laacibkaasi Ansu Fati xilligan ballanqaad xoogan uu ka haysto madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona asagoo markaa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee garabka u noqon kara hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. xidigani Ansu Fati ayaa abiisa wuxuu la doonayaa wiilkiisa inuu ku sii nigaado kooxda kubadda cagta Barcelona. maamulka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa ku dhawaaqay inaysan hubin in kooxda kubadda cagta Barcelona ay xil ciyaareedkani loo wareegi karto xidig reer Brazil ee Neymar Jr. sidoo bay daawacday jirada Sky Sport waxaana laga soo xiganaya
warinaya madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain in xilligan Barcelona ay ku fashilantay damaceedii ku aadan in Neymar markale dib ugu celiso istaadiyaha Camp Nou ay ugu wardabeysay sanadkii 2017 xilligaasi ee kooxda Paris Saint-Germain ay kula soo wareegtay adduuncageed gaariye 222 milyan oo lacagta Euro-ga xidigan reer Brazil ee Neymar Jr ayana labadii bilood ugu dambeysay aad ugu ololeynayay in uu ku laabto kooxda kubadda cagta ee Barcelona isagoo xiriir aad u wanaagsan balale qaar kamid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Barcelona kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa horay u soo bandhigtay shuruudo kala duwan oo ay kooxda kubadda cagta Barcelona laga doonayay inay ka soo jawaab celiyaan balse waxa muuqanaysa inuu xidiga reer Brazil Neymar oo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo garoonkeeda ku sii nagaadi doono tan iyo xil ciyaareedka soo socda maadaama xilligan aysan muuqanin ifafaalo ku aadan in kooxda kubadda cagta Barcelona mar kale dib u bilaabi karto wada hadallada ku aadan xidiga reer Brazil Neymar Jr sidaasi waxa ku lumi doonta rajadii iyo hamigii weynaaba uu lahaa wiilka reer Brazil Neymar kulabashadiisa istaadiyaha Camp Nou kooxda kubadda cagta Barcelona marba hadii madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barca uu ka gaabsanaya arrimaha ku aadan xidigaasi reer Brazil Neymar Jr kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhinaca kale xilligan xoojinaysa dalabkeedii ku aadan ciyaaryahanka u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Coman laacibkani ayaa ka dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany ciyaaryahanka u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Coman ayaa kamid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United maadaama shakhsiyan wiilka reer France ee Coman uu aad markaa u xiiseynayo inuu u dhaqaaqo istaadiga Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United oo markaa aad u la xiriira labada ciyaaryahan ee isku dalka yihiin Anton Martial iyo Paul Pogba kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xil ciyaareedkan bartilmaameedka ugu sareeya waxa ay ka dhigtaan xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Sancho balse waxa la fahansan yahay ciyaaryahankan u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Coman inuu kamid yahay bartilmaameedyada ugu sareeya ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United xidigan ayaa shakhsiyan bal aaminsan yahay in uu diyaar u yahay inuu dhageysto dalab ku aadan kooxda kubadda cagta ee Manchester United tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wada qorshihiisii ugu dambeeyay asagoo doonaya in uu la soo wareego ciyaaryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Sancho kadibna markaa ay u dhaqaaqaan laacibka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Coman tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa dhinaca kale aaminsan in ciyaaryahankiisa Sergio Kun Aguero uu tamaam u noqon doono oo kulan ciyaareedka lugta labaad ee wareeg 16 ee tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ee garoonka Etihad Stadium kooxda Manchester City ay ku qaabili doonto Real Madrid laacibkan u dhashay wadankaasi Argentina Sergio Kun Aguero ayaa wuxuu kamid yahay halbowlaha ugu muhiimsan ee kooxda Manchester City maadaama ciyaaryahankani uu dhaawac ka soo gaaray dhinaca jilibka bisha ayna ka soo gudubnay waxaana la xusayaa in ciyaaryahankani uu waqtiga kan xaadirka diyaar garow xoogan uu ku jiro si uu ciyaaryahanka uu kaga soo dhex muuqdo kulan ciyaareedka tartanka Champions League ay kula ciyaari doonaan garoonka Etihad Stadium kooxda Real Madrid 7 Agoosto tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaana arinkani kalsooni weyn ka muujiyay waxaana uu xusayaa in dhammaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan kooxda kubadda cagta Real Madrid tani waa mid aan kalsooni weyn ku qabo maadaama ciyaaryahanka Sergio Kun Aguero uu dadaal aad u sareeya uu wado si ciyaaryahanku markaa uu kaga mid noqdo ciyaartoyda line-up-ka ugu horeysa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaan diyaar la nahay inaan markaa qoosino kooxda kubadda cagta Real Madrid sidaasi waxa laga soo xigtay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ciyaaryahanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa wali wada qorshihiisii ku aadanaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka maadaama ciyaaryahankan ka tirsan kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez xilligan kooxda uu doonayay Barcelona aysan ka soo jawaab celinin ficil ku aadan in ciyaaryahanka ay u qorsheenayaan baxil ciyaareedkan inuu ka dago iyo Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona xidigani ayaana markaa xusaya in dalabyo muhiim ah dhawaan ka soo gaaray waa toddobaadkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska warbaahinada qaar ayaa warinaya in kooxda kubadda cagta Barcelona ay qorsheynayso inay markaa diyaar la tahay inay waqtiga kan xaadirka ay dib u soo celiso wada hadaladii ay ku doonayaan wiilka reer Argentina Lautaro Martinez maadaama Barcelona aysan xilligan dhageysan karin qiimaha heshiiskiisa lagu burburin karo taa oo gaaraysa adduuncageed gaaraya 111 milyan oo lacagta Euro-ga madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu doonayaa Inter Milan inuu ka dhaadhiciyo in ciyaaryahankaasi ay ku qaataan qiimo gaaraya 65 milyan oo lacagta Euro-ga oo si kaasha loogu gacan gelin doono kooxda reer Talyaani Inter Milano xidigani ka tirsan kooxda Inter ee Lautaro Martinez
ayaana toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu cadeeyay in xilligan uu diyaar u yahay kooxda kubadda cagta Barcelona ku biristeeda maadaama ciiraankani sidoo kale uu hore u cadeeyay in heshiis shakhsiyad uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaana kooxda Inter Milan ay dhigaysan doontaa oo kaliya qiimo gaaraya 111 milyan halka Barcelona ay dareynayso in wada hadallada dib u bilaabi doonto balse kaliya wada hadalladeeda uu ku ekaan doono qiimo gaaraya 65 milyan oo lacagta Euro-ga oo ay markaa ku qiimeyn karaan ciidankaasi Lautaro Martinez in lagu geyn karo horyaalka wadankaasi Isbaanishka